Hey, salaam nabadin xiskurkiina haato qofka idinla hadlayo waa Saadiq Wadani. Maanta waa maalin kale waxaan rabnaa inaan uga hadalno qodobo aad iyo aad u muhiima ayna soo weydiiyeen walaalaha inta badan daawada programmadeena mar walba soo gudbino. Wagaag sidaad ciwaanka ka arkaysaan waxaad xagga ku aragtaa sidee lagu heli karaa sidee lagu helaa cinwaan USA ama North America iyo weliba phone number. Okay, it's easy and dariiqyada ugu fudud adoo aan meelaha ka dhicin. haddii aad degan tahay Canada rabto inaad ka shaqaysato bartan loo yaqaan USA Mareykanka, haddii aad degan tahay Europe, haddii aad degan tahay Africa, haddii aad degan tahay Asia, yacni shuruudaha way kala fudud yihiin. haddii aad degan tahay Europe iyo North America iyo maxaa la dhahaa iyo Canada, yacni stepkan aad buu idinku fudud yahay maadaama bangiyadiina ay ku xiran yihiin wadamada aan joogno. haddii aad degan tahay Africa iyo Asia, waxaa habboon inaad haysato Payoneer ama qof inuu meelahan ku jooga bangiyadaas ayaga ah ku xalliya. Okay, waa labadaa midkood keliya. waxaan garanaynaa dad fara badan oo Dubai jooga, waxaan garanaynaa dad fara badan oo jooga Carabaha oo ayaga intooda badan ka shaqaysta. waxaan kaloo garanaynaa dad jooga Africa oo ayaga intooda badan ka shaqaysta. Wagaag maxaan ula dan leenahay ciwaankana maanta usoo gudbino. waxaan aragnaa dad fidiyo fara badan oo la soo xiriira dhinaca WhatsApp-ka iyo dhinaca YouTube-ka oo na weydiinaya siday ciwaan ku heli lahaayeen. waxaan rabnaa marka ugu horreysa inaan tusaalooyin bixina dad badan oo wadamadan dibadooda bixin jooga marar badan waa ka soo hadalnay inaan wax yar idinka tusin. Wagaag ninkan hadda waa arkaysaan xagga tusaale ahaan baan usoo qaadanay. waxa uu leeyahay waxaan joogaa xagga kan loo yaqaano Denver, Colorado ee Mareykanka, laakiin haddaad ciwaankiisa waa arkaysaa waxaa ku qoran Funko Store. Okay, Funko Store ciwaankiisa waa aragtaan xaggaa kore. haddaan gudaha usii galo xagga ku dhufto waa kana Funko Store. xagga kan waxa uu joogaa qofka meesha loo yaqaan Philadelphia. Okay, wuxuu joogaa Philippines uu joogaa. sidee ku dhacdo qof Philippines jooga inuu kugu yiraahdo waxaan joogaa Denver, Colorado? Okay, that was the method ka aan rabno maantadan inaan wax idinkaga sheegno aan idin tusino dariiqan sirta ku jirta iyo macnaha ka dambeeya qof waddankan aan joogin oo haddana ku leh waxaan joogaa waddanka kale. Okay, haddaa xagga ka aragto waxa uu qaataa waxyaabo fara badan. Paypal waa la qaataa sida hadda xagga ku xusan, waagii hore ma jiri jirin. haddaad Paypal ku bixinayso waad bixin kartaa. waxaa xaggan hoose ku xusan Venmo wax la yiraahdo iyagana oo hadda kusoo kordhay weli aan researchigooda annaga aan wadno sida arrinkan asiga lagu xalin lahaa dadka khaasatan Africa jooga. Google Pay marka waxaan kala hubin inay tahay inuu qofka bixin karo laakiin aysan qofka eBay uusan aqbalaynin. labada method waxaan rajayn doonaa walaalaha dibadda waddanka jooga inay qorshahan ayaga ay wax ka eegaan insha Allah tacaala. annagana dib aan u eegi doonaa. waagaa qorshahan gudaha u gali doonaa annagoon kusii dheeraanin. Let's go. maadaama idinkan idin tusay dariiqa ugu fudud ee loo samaysto mar alla marka aad samaysato accountigaaga ii sheeg loo yaqaano accountigaaga eBay. marka aad samaysato maadaama account eBay aad samaysato waddanka aad joogto aad ka samaysanaysaa waddanka aad joogto ayaad waxaad ka samaysanaysaa waxa loo yaqaano eBay. Okay, eBay haddaa Canada joogto .ca, haddii aad joogto maxaa la yiraahdaa ii sheeg Europe waddanka France whatever meel alle meesha aad joogto .fa.uk. marka aad samaysato haddii aad u baahan tahay account dheeraad oo kale inaad samaysato anay tusaale ahaan accountigaan ku jira xagga kore waxaa ku xusan .com. haddii aan rabo inaan galo waxa loo yaqaano ebay.ca oo Canada ku saabsan anoo aanan loginkayga wax ka bedelin ayaan gudaha u geli doonaa insha Allah tacaala. waxaan leenahay www.ebay.ca. okay, waa eBay Canada. automatically waxaa aragtay xagga waxaa leeyahay sign in gare telefonkayga macluumaad kaliya iga baahan inaan waxyar xagga ka saxo. waxaan leeyahay sign in accountiga aan ku galay loo yaqaan accountigayga usernamekii iyo wixii xagga ku kala doonaa. waagaag markaad sign in tiraadid waxaa samaynaysaa barta tan ay ku qoran tahay adiga qof walba siduu u gala asiga yaqaano. waxaan saangarayn doonaa accountigii Canada ahaa idinkoo arkaya calanka Canada xagga ka soo bixi doona. waxaanu ku saangarayn doonaa waxa loo yaqaano loginkeenii ebay.com iyo passwordkeenii annaga waxba aan ka bedelin. xaggan waxaan ka arki doonaa storekeenii Mareykanka ayaan waxaan ku iibi doonaa Canada. Okay, so let's go forward insha Allah tacaala. waxaan leeyahay Google loginkayga Google baan ku gelayaa sida caadada ahayd aan ku geli jirnay. only waxaa laga yaabaa password inuu i weydiiyo ama isii daayo directly. alright, wuxuu leeyahay set up gare. so automatically hadda waxaan ku jiraa Canada. saaxaga ka arkaysaa .cna. waxaan joogaa accountigii Canada iyo calanka xaggaasaa ka aragtaan. so yacni North America يعني marka aad soo joogtid Canada iyo Mareykanka waad ku dhex iibin kartaa dhexdooda wax weyn ma farqi. haddaad u baahan tahay Mareykanka inaad ku iibiso .com
ayaad soo galaysaa passwordkii aad Canada ku lahayd aad ku samaysanaysaa haddii aad u baahan tahay inaad saad sidoo kalena vice versa aad ku iibiso Maraykan qofka joogo sida hadda annaga aad ka arkaysaan inaad ku iibiso Canada iyadana isla markaasna waxaad samaynaysaa same thing oo annaga hadda aan samaynay okay waa is easy North America dadka jooga dadka Europe jooga ayagana waxaad samaynaysaa marka accounting meesha waddan alla waddankaa joogta ka samaysatid ana iishe markaa kadib ayaa waxaad samaynaysaa .com ayaad accountigaagii login ku samaynaysaa okay .com Maraykanka ah markaas kadib waa shayyaasha caqabadaha jira kaliya hadda idinka saacidi doona insha Allah taala waana arki doontaan saan u saacidno okay maxaa u baahan tahay si aad Maraykanka ugu iibiso aad u noqoto ninkii oo kale waxaad u baahan tahay marka ugu horeysa waa inaad heshaa address Maraykanka waa inaad heshaa telephone Maraykanka labada kaliya iyo waa inaad samaysaa accountigaaga .com-ka aad Maraykanka ku iibanaysid waa inaad samaysataa retaining address waxa loo yaqaan intaasna hadda ay tusin doona aan hore u socon insha Allah wahagaag marka ugu horeysa waxaan sameynaynaa waxa loo yaqaan Shibito qof alla qofkii u baahan inuu istaan-gareeyo iyadoo waxaa jirta version free ah iyo iyadoo pay ah annaga waxaa tusin doonaa waxaan annaga haysanaa kan free-ga idinkana waxaa idinka rajayn doonaa inaad kan free-ga isticmaashaan qofkii u baahan inuu يعني تلفوني وراقي دib loogu soo dirdirana wuxuu isticmaali doonaa kan lacagta ah so wahagaag UK wuu leeyahay haddaad u baahan tahay UK inaad ku iibiso haddaad u baahan tahay Maraykan inaad ku iibiso adresskaas aad buu muhiim u yahay sida ninkii aad tusinayay dhahay waxaan joogaa Denver Colorado ayaad waxaad u heli doontaa address iyadan xagga ah wahagaag so marka aad joogto Shibito annaga hore aan u saxiixnay waxaan isku dayaynaa mar labaad saxiixno waxaad tusin doonaa addresska xagga noogu yaala siduu yahay iyo waxa uu ii sheeg xagga kan aad ka arki doontaan okay wagaag annaga horaan u sixin xagga waa ka aragtaan wadani addresskan meesha ku qoran 44 qof walba yani waxa uu siiyaa wadankan California oo xaruntooda meesha ay ku leeyihiin laakiin waxa uu siiyaa waxa loo yaqaano address kala duwan ana suite number kala duwan okay so this is the main thing aad u baahan tahay address retaining address haddii qofka alaab uu kugu soo celinaya eBay haddii aad Canada joogtid haddii aad Europe joogtid haddii aad Africa joogtid waa inaad haysataa waxa loo yaqaan retaining address haddii aad Africa joogto I believe dadka intooda badan waxay sameeyaan addresskan ay ku saangareeyaan waxa loo yaqaan eBay sidee marka taas ku hagaagi kartaa waxaad tagaysaa accountigaaga waxaad tagaysaa barta tan ay ku qoran tahay addresska xasuusnow mar alla marka aad eBay policy samaynaysid waxaad tagi doontaa xagga kan business policy ku qoran tahay laakiin taasna maanta hadafkeena ma aha barta ay ku qoran tahay address aad ku dhufanaysaa xaggaa waxaa ku qoran retaining address okay retaining addresskaada waxaa gelin doontaa oo naga shakiya annagana waxbuu na weydiiyey waxaan leenahay sign in okay sometimes markaa Canada ay ku furan tahay wuu naga shakiyey so we will see what skip here so xagga kan ayaad ku buuxinayna addresskii xagga ahaa aan ka soo qaadanay meesha tan loo yaqaano Shibito okay addresska 444 Alaska Avenue ayaan xagga ka soo qaadanayna waxaan soo gelin doonaa retaining addresskaas barta ku qoran ayaan ku qori doonaa xaggana waxaan isaga bixin doonaa magac nana whatever you know so addresskaas aan gelin doonaa meesha ku qoran tahay street address 2 ayaan waxaan gelinaynaa suite numberkeena xaggana la siiyey waxaa ku qoran suite SSCC ayaan gelin doonaa iyadana wahagaag markaa kadib xasuusnoo meeshan magacaada aad gelinaysaa oo same thing magaca kugu qoran Shibito magaca kugu qoran wadani ama magaca company kugu qoran ayaad gelinaysaa wax weyn maaha oo maxaa la dhahaa eBay-ga aad ku samaysatay wahagaag waxaan soo qaadanaynaa waxa loo yaqaan city-ga iyo zip code-ka city-ga waa Torrance okay city-ga waa Torrance zip code-kana waa waxa loo yaqaano iyadana waa isla city-ga waa ka magaaladu waa California haddii aad garan kara laada short abbreviation ereyada gaagaaban sida meeshan ku qoran fadlan Google garee waa maxay CA which state hadaa ku tiraahdo USA they will tell you like annaga maadaama America la naqaano waxay noqonaysaa inaan California CA California zip code kana 955 something 905003 ardaydeedu intooda badan kana isticmaali doonaan insha Allah ayna isticmaalaan qaarkood markaa kadib waxaa kuu soo haray numberka xagga kale lagaaga baahan yahay number Maraykanka saad u hesho iyadana waxaad tegaysaa barta tan loo yaqaano Tampa Mail ama Tampa number so this is xoogaa waa lacag $1 aad bixinaysaa oo activation ah
أنا بنجي والبو قادنايا وحالة هذا try for free try now okay so is a vibe number وحالة هذا وحنوبة أنا Dutch Pros United States وحنوبة أنا Discord أدونا وماشان eBay أنا so automatically you click number eBay وحالة هذا continue United States ما ضبها أنتهي automatically هو يقعنا eBay وحالة هذا number United States بنوبة أنا continue waxaad bixin doontaa waxa loo yaqaano $1 iyo 20 cent ani hanteeda laga yaabo adiga inaad bixiso activation fee inaad bixiso waxa loo yaqaano $20 haddaad u baahan tahay more questions xaggan aad ka weydiin doontaa iyadana waad qaadan doontaa sidaa laaligeed waxaa leedahay activate a number aan u isticmaalay eBay to United States ama Amazon to United States so kan wuxuu kaa saacidi doonaa iyadana waa $1 iyo $2 number Mareykanka haddaad u baahan tahay waa inaad wax yar lacag bixisaa okay kabaniye kale way jiraan sida haddii aad leedahay waxa loo yaqaano tax me now badan ma qabto tax me now okay I believe inuu kan yahay waa kan ugu horeeya inta badan wuxuu ku leeyahay download garayso telefonkaaga telefon kor saaraysaa asna qofka u shaqeeyo dadka inta badan Europe iyo Mareykanka jooga iyo Canada u shaqeeya laakiin dadka Afrika jooga inta badan way ku dhib badan yihiin kan laakiin kii Telegramka kii aan kuu sheegay template number kan aad iyo aad buu u shaqeeyaa saa arkaysaan $20 waxaa laga yaabaa adiga inuu ku yiraahdo $2 qaarkood inuu ku yiraahdo 40 cent it depends qofka locationka uu joogo iyo numberka uu baahan yahay for eBay number aan u baahanahay is going to give you a number for eBay okay so haddaad u baahan tahay tax me now try gray is free telefonkaada ku xiranaysaa abkaas soo download garaysanaysaa sida annaga telefonkeena nagu jiraa qof walba oo Mareykanka jooga telefonka ugu jiraa oo 2 numbers ah kaasna waa kaas labadaas marka aad samayso ayaa waxaa ku dari doontaa kan ugu muhiimsan oo bedeli kara addresskaaga caadiga ah waagaag so waxaan isla baranay inaan samaysano shipping address iyo telefon laakiin muhiimadda ugu wanaagsan oo addresska kuu bedelaysa haddii kale eBay waxay noqonaysaa inay ku tiraahdo qofka kan waxa uu joogaa Soomaaliya qofka kan waxa uu joogaa Canada xagga ay ka soo baxdo calaamadan loo yaqaano bartatan hadhow ay ka soo baxdo sida tusaale ahaan kan oo kale inuu qofka yiraahdo waxa uu joogaa meeshuu ka oran lahaa waxa uu joogaa Georgia hadhow wuxuu leeyahay qofka kan waxa uu joogaa Soomaaliya si marka eBay algorithmkeeda loo qaldo waa inaad isticmaashaa waxa kana loo yaqaano iyadana RDS okay RDS waa inaad isticmaashaa sidee marka RDS ku isticmaali karnaa let's go back one more thing hal meel aan ku noqono waxaan tegaynaa Amazon alaab baan soo qaadi doonaa idinkoo arkaya waxaan soo gelin doonaa bartatan loo yaqaano annagoo addresskii hadda aan samaynay isticmaali doono wagaag marka waxaan isku dayaynaa inaan alaab soo gelino alaabtan hadda automatically Amazon ayaan ku jirnaa Amazon ayaan ka baarnay Amazon waxay ka tahay $16 haddaa eegto bartatan loo yaqaano eBay waxa ay ka tahay waxa loo yaqaano iyadana $25 ninkan waxa uu iibshay $11 so automatically $3 iyo wax la jira ayuu ninkan ka faa'iidaya sababtoo ninkan yani ma jooga Mareykanka sida xagga ku cad waxa uu leeyahay waxaan joogaa South Korea haddii aadan isticmaalin RDS ama softwarada ku kala bedela wadanka aad joogto markaad sheeg zip code-kooda ku kala bedela wixii hadda idin soo tusiyay Shibito iyo telefonka la sameysanayo address returning la celinayo taas waxay gooni u tahay eBay laakiin eBay haddii aad Soomaaliya joogto ama Canada aad joogto waxay ku leedahay qofka kan waxa uu joogaa Canada sida ninka hadda meesha ku xusan ninkan waxa uu joogaa South Africa South Korea walina waa laga iibsanayaa alaabtii laakiin yani South Korea waxaa loogu bartay waxyaabahan yani mudaawaadka wax la isticmaalo wejiga la marsado waxyaabaha la halmaalo marka si ay tan oo kale isu dhicin waa inaan isticmaalnaa RDS waxaan tusin doonaa annaga addresskeen hadda alaabahan iibino bartatan haddaad gudaha u galno waxaad arki doontaa ciwaankeena inuu yahay Minneapolis 55 alaabaheena ka mid aan soo saari doonaa kadib waa idin tusin doonaa insha allah tan baa alaabtan hadda iibshanaya tusin insha allah okay alaabtan hadda annaga aan iibinay haddaan ku dhufano alaabtan waxay ku caddahay inaan xagga kan annaga aan joogno barta loo yaqaano Minneapolis laakiin marka aan soo gelino waxay noqon doontaa meesha aan joogno meel aan hadda annaga ku heshiino oo ciwaankeena ayaan soo gelinayaan idin tusin doonaa barta aan joogno okay wagaag si ay taa u suurto gasho marka ugu horeysa waxaan soo qaadan doonaa alaabta tan Amazon aan ku jirnaa usually waa taqaanaa sida alaabta Amazon loo soo qaato marka aad soo gelinaysid barta tan loo yaqaano RDS barta kora ku dhufanaysaa ciwaanka oo dhan ayaa soo qaadanaysa waxa leedahay copy waxaan tegaynaa bartii loo yaqaano RDS xagaasaan ku dhufanaynaa waxaan leenahay add account
bartaa markaan marayna ayaan waxaan kasoo calaamadii aan soo qaadnay ayaan xagga past and outlet ku leenahay alaabtii oo dhan oo guuraysa xagga ku jirta wax alla wixii xagga ku jiray sawiradii macal waxyaabihii dhan ay xagga noo soo gelin doontaa haddii aad u baahato RDS inaad saxiixdo fadlan videogan xaggiisa hoose ama nala soo xiriir xaggiisa hoose ayaa ka heli doontaa wax walbo annaga aan ka hadalno linkiga xagga hoose idiin soo dhigi doonaa videogan ama YouTube ha noqoto ama TikTok ha noqoto ama meel walbo la halmaala waagaag waxaan aragnaa alaabtiina xagga ku jirto waxaana leeyahay xagga waxaa ku jira zip code-keena Minneapolis annaga hadda waxaan gelin doonaa zip code-kii hadda aan soo qaadana meeshii loo yaqaano Shibito maadaama zip code-kaas adresskaas aan rabno inaan degno California adresskaas ayaan waxaan dhigi doonaa copy waxaan tegayaa bartii loo yaqaanay RDS zip code-kii xagga ka tirtiri doonaa waxaan leeyahay geli zip code-kan xagga markaa 90503 aan geliyo xaggan magaca ayaa isbedeli doona waxa uu tegi doonaa Torrance California Torrance CA bay noqon doontaa waa ku dhufanay xagga waa arkaa ciwaanka uu isbedelay waxaa soo baxay Torrance CA okay adresska mahadadan waxaan haddii aan alaabtan geliyo meesha loo yaqaanay eBay waxaan joogaa bartan loo yaqaano California marka hore Minneapolis waa ka guuray California adigana waa saas oo kale meel alle meesha caalamka joogto haddii aad isticmaasho software-kan iyo ama kuwa kale oo la halmaala aad bay u muhiim tahay waxay kaa qaranaysaa adresska aad joogto in aad ka mid noqoto dad meel kale jooga waagaag adresska wax walba inoo saxan yihiin waxaan isku dayaynaa inaan lacagta wax ka bedelno 24 something maadaama ninkii uu iibinayo 24 alaabtan waxaa noogu jirta annaga $6 $4 waxaan leeyahay alaabtan port small easy steps one more steps waa alaabtii waxay soo geli doontaa storeka iyaga markay storekeena soo gasho waxaa ka tusin doonaa haddii alaabtii ay gudbiyeen waxay noqonaysaa daasid alaabtii way tagtay waxa ay gashay bartii loo yaqaanay eBay waagaag marka waxaan eegaynaa bartii ay gashay eBay inay adresska isbedelay in kale okay adresskii hore wataa idin tusiyo wuxuu ahaa Minneapolis hadda waxaan ka dhignay California ana Torrance inaan joogno ayay naga dhigaysaa software-kan loo yaqaano RDS waagaag waxaan soo qaban doonaa alaabtii iyada hadda aad arkaysa inaan soo qaadnay annagoo jecel wax walba tusoo taabsi oo live inaan tusino waagaag gudaha usii galaysaa waxaa tagaynaa alaabtii waatana ugu dambaysa halka xab ugu dambeeya xagga ku jira waa iyadii alaabtii nitrogen inay tahan moodaa hadda inaan soo gelinay isnaad iyada ma aha waatan alaabtii okay alaabtii iyada waatan so now alaabtii way soo gashay waxaan leenahay waa ku dhufan doonaa markaan ku dhufto waxaad arkaysaan barta aan joogno okay xaggaan jooga waataan daaytii tusinaya waxaan joogaa Torrance California automatically ciwaankayga uu isbedelay Torrance California marka hore waxaan joogaa Minneapolis laakiin hadda waxaan joogaa Torrance California wahagaag yacni xaggan eeg haddaan xagga tagno alaabta haddaan ku dhufto adreskeeda waxaan arkaynaa inaan joogno Torrance California is easy method kuu sahlaya inay ku kala bedasho meesha alla meeshaad joogto waa kan zip code-kaas markaan xagga geliyay okay haddaan ka bedelay waa ka bedelaynaa sake of this ma rabno inaan trouble galno waxaan ogsoonahay dad badan oo ii sheeg arrinkan ayaga oo ii sheeg dhibaatooyin istooradooda looga xiray aan caadi u ogsoonahay so we don't want annagana arrinkan nagu yimaado hadda waa bedelnay waxaan leenahay safe bartii nagu celi marka insha allah okay so that's the how ay kugu caawinaysaa maxaan soo baranay waxaan xagga ku soo baranay 3 shay oo loo yaqaano waxaan ku soo baranay sida Shibito looga sameeyo address Mareykanka si waxaan soo baranay sida telephone number Mareykanka xagga looga sameeyo iyo waxaan soo baranay sida addresska yani looga dhigo qof jooga Mareykanka oo kale la saga dhigo okay sida ciwaankaas oo kale aad u yeelato adoo Mareykanka jooga adoo Africa meel walba Asia Canada meel walba ka jooga xagga ka dhiga da more information aad u baahataan ana waxaan isku dayi doonaa mar walba inaan soo galno waxa loo yaqaan online-ka YouTube live ama TikTok live mar walba naga daawan kartaan arrimahan ayaga la xiriira mar walba waxaan soo tabaynaa insha Allah taala waxyaabo fara badan oo taxanaha bulshada wax ku oola malaankan waxaan isku dayi doonaa inaan maalin walba YouTube wax soo dhigno hadduu waqti Ilaahay noo saamaxo oo free aan jecelnahay aqoonteena inaan sadaqeeno ma muhiimadda mar walba in dadka lacag ka qaadno waan wax walba ku lacageen wasaadaq wadani iyo asxaabtiisu idin leh walaalayaal intuu xoog shaqeyn lahaa عقلي هالشقية رمضان كريم إن شاء الله تعالى رمضان بنص دو قفل بنا
la isku duceeyo hal la iscaafiyo insha allah aad baad mahadsantihiin maalinta idin wanaagsan